marka nimankan waxay la yimaadeen taariikhdii miilaadi ahayd oo ayaga markaa saliibiyiin maadaama ay ahaayeen tanay marka dadkii ay ku fardiyeen bulshada muslimiinta marka taariikh miilaad halkaasay kasoo gashay awood marka ma aysan dib dambe oo ma soo noqonin dowla islaamiya oo sideedii kusoo celisa taariikhda oo sideeda u isticmaasha ma aysan soo noqon dowladihii islaamkaana taariikhdaas ka qaalib noqotay awoodiina cawlamadana qayb bay ka noqotay hadda oo way sii xoojisay oo dadkii asfaartoodii iyo fasaxyadoodii iyo waxoodii oo dhan waxay ku beegeen maadaama iyagu dadkii ay u taliyaan oo haymana ay ku haystaan maskaxiyan u haystaan oo dadkii looga awood batay dhinac walba yaa dadkii waxaa loo taariikh looga dhigay taariikh almiilaad. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وإن سلامنا ملك دونك جوكتان ما أنتو حن جعلاني برامج شرو كوبان أو دق إن كتورنا إن شاء الله تعالى سنان وذا أغنهاي أما إنير أو قيب كمدا سوماري ذا أغتهايبا دادكو موذا أغا موذا كوذا براروكسنا waxaa dhammaad maraya oo habeen dambe laga yaabo inay bilato ama habeenka ku xiga sanadka cusub bishii Muharram 1445 Hijriya marka maadaama inta badan bulshada ku baraarugsanayn waxaan jeclaanay bal qaybtan in sheeqan aan ku martiqaadnay inuu noo faahfaahiyo waxyaabaha sanadkan iyo waxyaabaha la isaga baahan yahay qofka muslimka in la baraarujiyo insha Allah taala marka barnaamijkeenan maanta waxaa marti noogu ah Sheekh Cabdicasiis Xibli oo aan waraysigan insha Allah taala ka qaadi doono imaamka masjidka Isliim Hall sheekhana marka hore kusoo dhaweynayna kusoo dhawo barnaamijkeena su'aalaha safiirka marxaban wadayna barakallahu fiik jazakallahu Allah ku sharfo waad mahadsan tahay waxaad noo sheegtaa marka koowaad hijriga bisha la yiraahdo goormay soo bilaabatay in la xisaabiyo taariikh ahaan. بسم الله الحمد لله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتا ميل كستو جوجتان مشاهدينتا يددك دغيسان doonaba وإذا سلام هيا سلامة إسلامك runtiina dadka muslimiinta mar kasta waxay isku leeyihiin inay wixii wanaag ah isku update gareeyaan oo isbaraarujiyaan waana idinka mahad celinaynaa dhageysiga iyo dadka waxyaalaha khayrka wadaan inaad dhageystaan marka labaad waxaan u mahad celinayaa al-akh safiirka oo anagu aan naanays ahaan xiiray iska dhaxno oo magacaas naanays u yahay inaan uu asagana uu bulshada kolba mawaadiic uu isleeyahay dadka bulshada way u faa'iideynayaan ama waxbay tarahayaan cidii uu isleeyahay waxbay maartay ay bulshada u soo kordhin karaan mowduucaas isaga ah inii uu soo bandhigo una ku mahadsan yahay runtii aad baan maartay barnaamijtiisa u mutaabicayaa nin oo in badan wacyi badan uu ku jiro weeyaan sida iga muuqata oo dhalinyaro badan oo maanta waxyaalo kaleeto oo fool xun ku mashquulsan oo ceeb bulshadii iyo mustaqbalkoodii iyo dadnimadoodiiba ku aha ku mashquulsan inuu fikrad ka cusub oo ka bedelan inuu keeno oo uu asaga iyo inta lamid ah ka shaqeeyaan waan ku bogaadinaynaa inta kadib walaal su'aashaada hadaa usoo laabto hijriga goorta uu bilowday laba jaanib baynu ooga hadlaynaa jaanibka koobaad waa bilaha islaamka uu tirsado bilaha islaamka uu tirsado waa 12 bilood 12 biloodna 4 bilood oo waxaa ku jira xurmo leh oo aan dagaalku uusan banaanayn oo si gooni ah diinta ay u xurmaysay bilo waxaa jira la yiraahdo ashhurul hurum bilo kaleeto waxaa jira iyagana 3 ashhurul hajj la dhaho 12 bilood isku darkooda oo dhan 12 bilood bay ka kooban yihiin 12 bilood jaanib waa ka tawqiifi inay 12 bilood cadadkoodu uu yahay quraanka lagu sheegay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ciddata shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitaabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وكتوقيف دنكاس مركا أو أنا لبي يتبان بلاد أو كلات إنه يهين أو كلات رسولكم صلى الله عليه وسلم من بدن بواسجنا ومالا بدن نوغا شيغا ونوغا تلمامي وحوت المامي بلها إنه لبي يتبان أيهين سنة وات المانتي وإن الزمان قد استدار كهيئة حديث في صحيح البخاري إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات وواحد ورجب مضر بين جمادى ورمضان تاس
afartaa bilood oo xurmada leh sunnadana lagu sheegay qur-aankana lagu sheegay iyo 12 bilood inay cadadku inuu yahay oo kaleete taas iyada waa iska tawqiifi qur-aanka lagu sheegay hijriga marka inaga taariikhda aan tirsano sanadka meesheebu ka bilaabanoo bishee yaa u horeysa teebaas u dambaysa iyo waqtigeebu bilowday intaas ijtihaadka ahayd intaas ijtihaadi ba kasoo galay xilligii waxaana la tilmaamaa waqtiga ay soo bilaabatay khilaafadii Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu inay ahayd sabab baana keentay bay yiraahdaan inay hijriga la sameeyo oo lagu ijtihaado saxaabaduna ay ku ijmaacaan kolkii dambana ijmaac bay noqotay oo waxay noqotay shay oo diinigi kamid ah bay noqotay waxay imaadeen marka Umar xilligiisii buu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu oo Basra ooga aha amiir ayuu wuxuu u diray waraaqda marka waxaa ku qoran taariikh aha shahru Shacbaan ayaa ku qoran waraaqdii markuu u diray Abu Musa al-Ash'ari wuxuu arkay inay arintan ka imaado oo sanad ku qorayn ilaan shahri bas ku qoran bil ba ku qoran laakiin sanad kuma qorno wuxuu arkay marka Abu Musa inay imaan doonto khalal imaan doono oo dhawaan la kala garan waayi doono waraaqdan Shacbaan la qoray ma sanadkii hore ma sanadkan hadda ma ka dib dambe imaan doona ilaa noloshu inay socotaan rabo xarakada inay socoteen Abu Musa waraaqdan dib ugu soo celiyay Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu markaas wuxuu yiri khaliifada rasuulillah hadii aan taariikhda waraaqa waxadii soo dirtaa aan ku qornayn sanad ku qornayn oo bil bas ay ku qoran tahay lamana kala garan doon waxa ka yaabaya inuu khalal u dhaco oo dhawaan la kala garan kari waayo marka saas darteed waxaan ku rayn lahaa in la sameeyo taariikh loo sameeyo oo sanad lagu daro macna in sanad talada marka meeshaas ka soo baxday Umar markii arintaas soo gaadhay ayaa wuxuu shiriyay saxaabadiisii buu shiriyay radwanullahi alayhim wuxuu yiri marka nimayo waxaan u baahanahay taariikh inaan hagaajino oo sanad oo bil fulaan maalin fulaan bil fulaan sanad fulaan in la dhaho yaa loo baahan yahay xageen wax ka bilowna saxaabadu waa ku kala ra'yi duwanaadeen waxay sameeyeen inay ku kala fiiraan maalmihii ugu muhiimsanaa islahaayeen marka ugu muhiimsan yahay inay ay isweydiiyaan مثلا قارن يدهان وقت رسولك الله صلى الله عليه وسلم بلونا سندك أو رسولك لصادره قارن يدهان وقت يقول شيء قارن يدهان مركي وسوي جرودي قارن يدهان عن تاريخ دوتك كلا تكو تاريخ سدان عن كو تاريخ يسمى أريد على سلا بعد دافع مركي لسلا بعد دافع عمر مركي هجرة يا أبتين صحابة رضوان الله عليهم إني هجرة رسولك الله قبل لعبه أو تاس مالك ودشيء هيد ولأسباب لوجتي tan markii uu maartay uu bixtada ahayna li asbaab looga tagay markii uu soo rasuulku sallallahu alayhi wasallam qaar ba xataa waxay markuu dhintayna deeyada murug bay lahaydba markaas waxa la siri inaan ka dhigno taariikhda aan ka dhigno hijriga Umar ba markii wuxuu yiri hijrada ay la fiican sababtoo aha farqat bayna al-haqq wal-baatil sida markuu ku qaatay oo hijradii la isla ogolaaday in taariikhda hijra laga dhigo oo hijrada lagu beego sanadka kowgiisa laga dhigo markuu rasuulku soo hijrooday يا هذانا وحنا يدي بشيء على قدي سنة كبش كوباد والله يسكوك كلا خلافي رمضان باليدو أيضا القرآن كسود دقي قاربا وحيدهن بلا كلا تشيئين أيضا يدهن بشر أيضا فضلية قاره إلى هاي هذا محرم بمركز هذانا لسوي الماضي علي عثمان ورسول يمركز وحولات تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه علي عثمان بمركز وحيدهن وحنا لقما إن أتكلكتو محرم إن أتكلكتو ما صورت الله ودي هذانا ركن إسلام بعد ماضي dadkiina ay ka soo laabanayaan noloshoodii cusbayd bay qaabilhayaan waxaan rabnaa marka in sanad ka in laga bilaabo bisha muharram tiiba marka sidaa la isku raacay hijrada marka bidaayadeedii hore halkaas ay ka soo bilaabatay maxayna waqtigaas iyada aha ay ku tilmaamaan inay miilaadiga ay waafaqsanayd 622 bishii July taariikh 15 qiyaastii meelahaas oo kaleete ayay ku qiyaasaan inay halkaas oo karta laga soo bilaabay marka intaasaan يعني سلا بلا وشذا ويا شيخ وحنا شيكتا مركا إسلام جورت كجوري إنه وحكو حساب صدق بلا هجرة وجوري بلا ميلادجة محانا السببي محانا كان إنه وجوره بسم الله الرحمن الرحيم وحان سديه كرا كل هنا دي والوك لا أركي دوانا كرا لكن أنت أيدت كباحثين تحقق القرآن أي تلمامان قار كمده بأنه تلمامينا سيدا أنه كسرنا هاي dadka muslimiinta dawladda islaam hay lahaayeen oo soo talin jireen rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ka soo bilaabatay soo socotay ilaa khilaafa Uthmaniya oo ugu dambeysay
meesha marka intaas waxaa lagu taariikh ahayd oo waxa taariikhda lagu akhrisan jiray ama taariikhda lagu qoran jiray waxay ahayd bilaha islaamka ayay ahayd. bilaha islaamka marka xilliga isbedelku ku yimaaday waa markii ay khilaafadii islaamiga ahayd ee khilaafa Uthmaniya ay dhacday oo nimankii saliibiyiinta ahaa oo la dagaalamayeen oo rideen ay isticmaalsadeen wadamada islaamka oo ay kala googooyeen. waqtigaas waxay ku fardiyeen taariikhdoodii ayagu ay wateen laana diin bay ka duulayeen. inta badan taariikhdu waxaa la yiraahdaa macnaha waa shucuubta weelkeeda ama maaragtay hawiyadeedii iyo waxa ayada lagu garta astaanteeda ay taariikhdu ay matashaa. laana waxay isku xidhaysaa dadka dambe iyo dadkoodii hore wixii ay xadaaro lahaayeen, wixii dadnimo lahaayeen, wixii wanaag lahaayeen. taariikhdana waxyaalaha laga faa'iideysto waxa weeye inaad wixii wanaagsanina sii hormariso, waxyaalaha dhaqamada xunxun ahana ay iska zuuliso, ka faa'iideysatan oo duruqda la khasaaraha iyo duruqa faa'iidada aad ku sii kala ogaato. marka nimankan waxay la yimaadeen taariikhdii miilaadiga ahayd oo ayaga markaas saliibiyiin maadaama ay ahaayeen tanay markay dadkii ay ku fardiyeen. bulshada muslimiinta marka taariikh miilaad halkaas ay ka soo gashay. awood marka ma aysan dib dambe oo ma soo noqonin dawla islaamiya oo sideedii ku soo celisa taariikhda oo sideed u isticmaasha ma aysan soo noqon. dawladihii islaamka ahana taariikhdaas ka qaalib noqotay, awoodiina cawlamadana qayb bay ka noqotay hadda oo way sii xoojisay oo dadkii asfaartoodii iyo fasaxyadoodii iyo waxoodii oo dhan waxay ku beegeen maadaama iyagu dadkii ay u taliyaan oo haymana ay ku haystaan maskaxiyan u haystaan oo dadkii looga awood batay dhinac walba yaa dadkii waxaa loo taariikh looga dhigay taariikh almiilaad. saasay marka ay ku imaatay inay taariikhda isbedelka islaamka ay ku imaato. maxaa muslimiinta dacfiga ku keenay oo maxay taariikhdooda iyagu ay taariikh uga dhigan laayihiin? waxaa ogsoon tahay oo maquulo ah la jirta oo la yidhaahdaa qofka marka laga awood badan yahay markasta cidda ka awood badan buu taabiciyo u raacaa, cidda ka awood badan buu markasta iska daba soconi. ma jira marka dawla oo intay imaato taariikhda islaamka ahayd dadkii ooga taariikh dhigta oo fasaxyadii ku beegta oo maaragtay mushaaraadkii ku beegta. taariikhda islaamka ka jiridda ay ka jirto jaanibka ay ka jirto waxaan isleeyahay waa jaanibka diinigaha oo cibaadaadka ah bas ay ka jirtaa. waana jaanibka aan isleeyahay mar dambe su-aashiisa dib ka imaan doonto ahmiyadda ay u leedahay bilaha islaamka ay u leeyihiin dadka muslimiinta ah iyo qiimaha ay ugu fadhiyaan inaan dib isugu imaan insha Allah dileerad. way sheeqana marka waxaan noo sheegtaa dadka muslimiinta ah ee adduunka dacaladiisa ku nool qiimaha ay u leedahay bisha muslimiinta ama hijriga qiimaha uu leeyahay. bismillah waxaan isleeyahay bilaha islaamka ahmiyad weyn bay dadka muslimiinta u fadhiyaan. shuhuurta si ahaan markii la waxaynayo waxaa laga fiiriyaa inaga bilaheenan islaamka 12 ah waxaa la yiraahdaa shuhuur alqamariya, dayaxay ku tacalluqaan. tiradooda xisaabtooda waxay bilaabataa habeenkii, bisha aragtideeda ku imaataa, bisha dhamaadkeedana waa sidaas ku dhamaataa. waa shuhuur qamariya. tan miilaadiga ahana waxaa la yiraahdaa waa shuhuur shamsiya, waa maalinka iyagu tirsadaan. walidaalika waxay dhahaan waxaa inta badan dhacda markii sanadka hijriga iyo sanadka miilaadiga markii la isu fiiriyo sanad kastaba sanadka hijriga waxaa ka nusqaamo 11 maalmood. sababta maxaa keenaya? waxaan isku cadad baynan ahayn. bisha islaamka markuu tirsanhayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay inay 29 ku dhamaan karto, 30 ku dhamaan karto waa bisha hijriga. bilaha miilaadiga laakiin 28 31 saasay markay ayaga ay noqdaan bilaha miilaadiga markay ayaga ay tirsanayaan. meesha marka waxaa ka soo baxay faariq baa ka soo baxay. qodobka kaleeto oo muhiimka ah oo dadka muslimiinta inay ku baraarugaan ay tahayna bilahan qiimay muslimiinta ugu fadhiyaan. bilahan miilaadiga aynan inoogu fadhinin. cibaadaadkeedna oo dhan waxaa aasaas u ah oo gundhig u ah oo ku asaxaan waa bilaha islaamka ku asaxaan. مثلا waxaan ka soo bilowno soonka kale ka soo bilowno suumu liru'yatihi wafturu liru'yatihi baa la yiri faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu oo kaleete. waa soonkii midkiisi kafaarkii oo waajibka ahaa xataa kafaaraadkii cadad bay leeyihiin, tiray leeyihiin, xataa soonka tatawuc ah waqti buu leeyahay. wixii saas oo dhan wuxuu ku tacalluqaa waa habeen iyo tiradaas islaamku u dejiyay. xajka ku imo xajkana waa sidoo kaleete ashhurul hurum baa jira xilli go-an oo bilo kaleeto un ka asaxayniba bilaha go-an buu ka asaxaya. waana 3 bilood oo shawaal iyo dulqicda iyo dulxija waay. 3 bilood buu xajkiina leeyahay. asagana
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بالله سبحانه وتعالى marka meeshaasna ayadana xajkiina wuxuu uu ku asaxay waxa weeye waa tirada bilaha qamariga inaga aan xisaabsano hijriga ah waxaad arkaysaa zakadii dadka waxay laguma bixin karo hadda xajki kuma xajin kartid bilaha miilaadiga soonkiina kuma soomi kartid bilaha miilaadiga zakadiina kuma zakayn kartid bilaha miilaadiga sababtoo ah naqsi baa galaya iyo ziyaado iyo ayaa ku imaanaya bilaha marka zakadiina sidoo kale ay noqonaysaa xaga kale ciidadii gabdhaha markay ciido tirsanayaan baa soo galaysa cibaadaadkay soo galaysa gabadha ninkeedu ka dhintay baa soo galaysa waxaa soo galaya ilmaha qaangaabkiisi baa soo galaya oo sanad lagu xisaabinaya lagu fiirinaya waxaa soo galaya حتى معاملاتك ديمه وقت لك قادني وحي لك وحيسني شروطه عقودي هشيسيدي لقلاي وحاصلا dadka muslimiinta waxay u yihiin waa wada cibaadaad waay waxayna soo wada galeen cibaadaadkii muamalaadkiina waxa la rabaa in taariikhdooda lagu dadiyo oo lagu ilaaliyo oo lagu bixiyo oo lagu zakeeyo wax kaga xasaxaya qofkii waa bilaha islaamka waay taas marka keenaysa bilaha islaamka dadka inay ay bartaan ay ku amal falaan oo bilahoodii ay ilaalsadaan waana minta kaliya ka dhaqan yihiin oo dadka muslimiinta inta hadda u xifdinaysa bilahan inay jiraan waa intaas dacfigu wuxuu la imaaday dadkii mushaar kuma qaataan fasaxyadooda uguma aadano uguma waxaysno waxyaalaha maarta dadka haymanada lagu qabsaday waa artay bunuugti maalinta sabti maalinka xad ay fasaxsan yihiin ay fasax ku jiraan dadka waxaa gaaladu waa ka awood badatay oo waa maalmihii ciidda usbuuca oo dadka kaleeta ay lahaayeen yahuud iyo nasaarada ay lahaayeen dadka muslimiintahana ma lahaan maalmahoodii marka waxay noqdeen maalmo aan aad ictibaar badan iyo ihtimaam badan lahayn oo kale taana waxaa lagu soo celin karaa inay dadka muslimiinta ama ayagu madax banaanaadaan oo dad muslimiin ayagu isu taliya ha noqdaan ama dad xuquuq ku leh dalalka ay ku nool yihiin oo dantooda iyo xuquuqdoodii ku dhexla dowladaha ay ku dhex nool yihiin ha noqdaan inay ay xaqoodaas cibaadadii ku taxakumaya inay ku helaan ayna ableygaraystaan oo maaragtay ay dadkooda maaragtay matala oo kaleeto inay dadka ay ku wacyigeliyaan inay dowladaha ay ku hoos nool yihiin oo kaleeto inay maalmahooda fasaxooda oo kaleeto iyo ciidahooda iyo loo ixtiraamo khaasatan hadda Kenya oo kaleeto inta badan ciidaha kaleeto artay sida dadka ay maartay loo fasax baa loo siiyaa laakiin waxaa ka dhiman fasaxyadii kaleeto oo ciidi usbuucigii maartay waxyaalihii kaleeto oo mushaaraadkii waxyaalahaas oo kaleeto dadka inta badan dowladda awood u leh meesha talinaysa unba qalabada iska leh dadkan kaleeto waa iska waxa weeye dad yar waay waxay noqonayaan marka dad aan lahayn inaga laakiin qaybo aan inagu ku samayn karaa jirta kambaniyada iyo shirkadka dadka muslimiinta ay maamulaan oo kaleeto inay bilaha islaamka wax ku bixiyaan inay maartay ay dadka ay maartay ardada iyo macallimiinta iyo dadka maartay oo iskuulaadka iyo macallimiinta in lagu siiyo maana bilaha islaamka wax lagu siiyo wax diidahayaan maarkii hadii aynan maartay ay dadku ayagu ay intibaah ay leeyihiin oo ay garanayaan oo kaleeto way sheekh waxaad noo sheegtaa marka dadka muslimiinta ah inta badan markii la soo gaaro bisha December 25keeda 26keeda 27keeda 29keeda oo la gaarayo kooda maxaa la yiraahdaa January la gaarayo hambalyeyn iyo dabaaldegyo iyo waxbay sameeyaan oo marka ma moodaa in dadka muslimiinta xoog lagu soo qaatay oo xoog lagu jiitay hadda aysan ogeyn in sanad cusub la gelayo hambalyeynta iyo dabaaldega ama isugu hambalyeynta ciid ama iraahde isugu hambalyeynta sanadka cusub si hadda diintu u aragta sanadka islaamka runtii dee anigu meesha ooma soo fadhiisan su-aalo diin oo ku saabsan arrimahaas in laysii weydiiyo laakiin waxaan dhihi lahaa innaga islaamku wax oo lacib la yidhaahdo ma ogolo muxaasabada oo qofku inuu naftiisa uu xisaabiyo oo timekiisa iyo waqtigiisa uu ilaaliyayna waxaasibu qabla an tuxaasabu inuu alkayisu man daana nafsahu wa camila lima bacda almowt uu ahaado oo calaa dariiqa uu kusii socdo waa wax loo baahan yahay waxyaalaha tahniyaadka iyo waxyaalaha kusoo imaaday maartay isu tahniyeynta inta badan acyaad ku fiican tahay iyo waqtiyada maartay masmuuxa dadka ay wada yihiin haddana laakiin mid baa muhiim ah dadka inay isku baraarujiyaan sanad cusub in la galay inay isku baraarujiyaan waa muhiim sababtoo ah axkaam baa ka ratimaysa zakadii oo kaleeto in la ogaado bilaha waxaa ka dhalanaya qofkii qaangaarkiisii waxbaa ka dhalanaya qaangaarkii oo kaleeto in lala socdo ilmihii oo kaleeto in lala socdo oo kaleeto qofku inuu si dhankaas uu ka fiirsado waa sax dadkana in lagu baraarujiyo maxaasinta ay leedahay fadaaisha goonida laakiin ay u leedahay dadka loo sheego ama laakiin isku tahniyeydan iyo meelaha wax gudgudan lagu xidhiidhiyo wax la soo jeedo habeenkii oo dhan waxa waa dhaqan gaalo lagaga beenayo dhaqan islaam lagaga beenayo ma aha marka anaguna wixii ay gaaladu ay sameynayaan khaladka u sameynaynin inaan anagii oo gaaladii kaga beenayna haddana tiina ku sameeya oo xintan ah waa wixii xaaliyihii mawluudku ku imaado oo kaleetay ahayd
oo bardeen dadkan gaalada ah iyagoo way u mawluudayaan maxaa inagana aan xafladi iyo xafalaad u dhigi la'aan oo kaleete qiyaaskaas oo kaleete qiyaas oo fiican ma aha. ustaad marka gabagabadii bisha muxaram ee hadda nagu soo socota maxay fadli qaasa leedahay maxaana qofka muslimka ee bishaas gaara looga baahan yahay? bismillah alxamdulilah wasala allahuma calaa nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi ajmaciin. intaana intaa gelin waxaan aan rabaa tambiih yar oo laba qodob ah inaan horta ka mariyo su-aashaadaas. qodob, qofka muslimka ah inuu qof dhug leh oo baraarug leh inuu ahaado. sanad baa hadda dhammaanaya, sanad kaleetana waa inagu soo jeedaa. inaad naftaadii muxaasabo ku samayso, timekaagiina qofka muslimka ah uu fiiriyo waa muhiim, waa arrin muhiim ah. waqtiga inuu qofku muslimka waqtigiisa uu daneeyo oo wax adduunyadiisa ama aakhiradiisa uga faa'iideysanayo uu sameeyaay waa arrin muhiim ah. waxyaalaha la isweydiiyana waqtigaasaa ka mid ah. qofku ilaahay hortiisa kama zuulay buu rasuulka sallallahu alayhi wasallam maalinta qiyaamo ilaa laga weydiiyo 4 shay. 4taa shay waxaa ka mid ah cumrigiisa wixii uu ku dhameeyey, dhalinyarinimadiisa wixii uu ku duqaysiiyey. waxyaalaha la weydiinayo waa wax wada waqti ku wada saabsan waaye, waa cumrigiisii iyo dhalinyarinadiisa xilli time ku socdo waaye. inuu marka qofku isxisaabiyo oo uu naftiisa uu xisaabiyo, war sanadkii tegey maxaad khayr ilaahay hortiisa geysatay, maxaa akhtaa kaa dhacday, inuu is yidhaahdo waa muhiim. timekiisana kan soo socda haddii kii hore uu ka gaabiyey oo kaleete inuu kan soo socda uu isu diyaariyo, cimrigiisii uu sii gaabanayaa. sanadkii hore intuu joogay wuu uga dhow yahay, malakumowdkii waa uga soo dhow yahay. inuu intuu isdareensiiyo sanadkan suu uga faa'iideysan lahaa inuu isku dayo oo qofku uu sii diyaar garoobo sanadkan cusub wax ilaahay raali gelinaya bas ah inuu isku dayo inuu sameeyo kaleeto. bishan sidaan ogsoonahay waa shahrullahi almuxaram, ashhuru lxurum bay ku jirtaa. minha 4 xurum dalika addiinu alqayim falaa tadlimu fiihina. xurum maxaa loo yidhi? waa bilo ilaahay uu xurmo gooni aha uu siiyey oo laga reebay waxyaalaha tacadiga iyo dulmiga, ayagoo bilaho dhan bu dulmiga iyo tacadiga aan la banaanayn, haddana aan dagaalkii iyo isdagaalkii iyo waxaas aan la ogolayn iyo isku xadgudubka aan la ogolayn waayo. rasuulkuna sal allahu alayh alihi wasalam wuxuu tilmaamay fadaa'il gooni ohoy leedahay. soon bacda fariida ka fadli badan in la soomaayey bishan shahrullahi almuxaram ah ma jiro, siduu rasulku sheegay sal allahu alayh alihi wasalam. waxaa kaleeto ay lasii dheer tahay maalin gooni ah oo khaas ah oo maalinka cashuuraa ah iyo maalinka taasuuca oo rasuulku sal alay slam haddaan noolaado waan soomi uu dhahay. ayagana labadaa maalmoodna soom gooni oo fadli gooni ah le baa lagu sii tilmaamay, si iyadoo si guud in la soomo oo rasuulku u booriyeyo. soonka ugu fadli badan ee qof uu soomaa bacda siyaam oo fariidada ah waa bishan shahrullahi almuxarama, waa soon guud. intaa doontaad ka soomi kartaa, intaa doonta ha dhamaynin oo intaad dooda ka bilowdo gaala ku geynin, laakiin inta ugu badan inaad ka soomi karto inaad ka soonto. soon gooni ah oo khaas kusii ahna way leedahay oo yowma cashuura. soonkaasna waxaa la yidhi sanad tegey ayaa lagu dhaafaya, samada garan tii carafay kasoo horjeeda, sanad ayada tegey baa lagu dhaafaya. soonkaana way leedahay. acmaasha saalixada ah bilaha muxaram la sameeyaay way ka fadli badan yihiin bilaha kalete, maadaama bilihii muxaramka xurmada ay ku dhex jirto. ayadana acmaashii saalixada iyadoo dhan silatul arxaamkii, birul waalideynkii, adkaartii, qur'aankii, nacfi dadka kaleeto oo wax la taro oo wax loo qabto, masaakiinta oo la caawiyo, qofku inuu nacfigiisu mutacadi uu noqdo, taasna waa waxyaalaha ajirka badan lagaga helayo. bishan marka si gooni ah bay marka waxay u tahay ashhuru lxurum. soonka la soomaayo iyo camalka la sameeyaayna fadligiisu mudaacaf buu noqonayaa markii la barbardhigo bilaha kaleete, markii loo barbardhigo oo kaleete. waa bisha ugu qiimo badan soon la soomaayo iyo camal saalix oo la sameeyaay. allah ku sharfo, aad baa u mahadsan tahay imaamka masjidka isliimol sheekh cabdixasiis xibli oo barnaamijkeena maanta marti inoogu ahaa. in badan oo wanaagna noo dardaarmay ama in badan oon ogeyn oo meelaha milaadiga hijriga waxyaaba badan oo sharaxaada noo gelishay. aad baan ugu mahad celinayna sheekhana, waa ku mahadsan tahay. jazaaka allahu khayran, cimri dheer iyo caafimaad allah ku siiyo. walaalahana waxaan rajeynaya inay ka faa'idaysteen sii gudbi doonaan. intaas intaa dib dambe isaga imaan doono. wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.